بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومركله iyo barnaamijkii marqaatiga nool waxaan filayaa maaha markii ugu horeysay ka baxo marqaatiga nool Universal TV wajigayguna markii ugu horeysay oo aragtiin maaha isagiyo dardar qaba iyo mar kale ku soo dhawaado daawadayaal qabla kula shay aanan wax kala gelin waxaan halkan uga dirayaa tacsiid tiiraanya leh walaalaha maanta ku geeriyooday Central Hotel magaalada Muqdisho qarax ka dhacay ay mas'uuliyiinta khiyaarta asxaabta muxabbiinta walaalaha aanu jecelnahay ay ku nafwaayeen kuwii dhintana Allah naxariistii janna Allah siiyo kuwii ku dhaawacmana Ilaahay asaa qaadir raxmaan ha u boogadhayo si sahlan Ilaahay uga kiciyo kuwii laga dhintay laga tagay waxa weeye anagu kamid ahayna samir iyo iimaan Allah naga siiyo waxa kale oo sidoo kale aan ka tacsiyeenaya qaraxyadii dilalkiis daba jooga ahaa saddexdii nin ee civil aviation-ka mid walba uu lahaa 50 years experience-ka ee aanan filaynin inaan iyagu kale inaan helno waxaan leenahay iyagana naxariis iyo janna Allah siiyo samir iyo iimaan Allah naga wada siiyo inta markaan ka baxo oo aan guda galo barnaamijkaygii walaalayaal barnaamijkan horaan idin kugu sheegay waa wacyi gelin waa marqaatiga nool uma baahna in la fasiro waxa kaliya aad u baahan tahay inaad inta kursigaaga iyo koob shaah soo ag dhigato aad dhabanka iyo faruurta saas kugu qabatee aad dhahdo nood garayso oo aad dhahdo waxaan ku qaldannahay inaad noo soo sheegto waxa kalena aad na fiirsato marqaatiga nool hadduu idin qancin waayo ballan waxaan idin kaga qaadayaa midba midka kale uu ka dambeeyo inaad kaga xiiso badnaataan oo shacabku u haanyoodo sidii maaragtay sida ninka saa'imka ah qoraxda dhicideeda uu sugo kale inaan u sigtaan baan idin ka ballan qaadayaa marqaatiga nool biidin illaahi alkariim waxaan mar kastaba aan wax ku nahay waa shacabka saboodkiisa aragtidiisa iyo fikirkooda tala bixintooda haddii ay noqoto wixii aad dibsateen inay jirtana inaad noo soo sheegtiin maantay maxaan kaga hadli doonaa inta aadanse ka hadlin waxaan rabaa dhacdooyinka shacabka Soomaaliyeed maalmo dhaweyd oo Universal TV ka hadlay ayaa waxa jiray rag badan baa soo wacay oo ninba wax ku ta'wiiliyay intaanan iska iloobin inaan taa u galaan aan rabi lahaa oo qaar leeyihiin ragaad qaraabatiin baad wax ka sheegtay qaarna ay leeyihiin gabdhaad wax ka sheegtay qaarna ay leeyihiin xaggaad wax ka sheegtay horta koow Soomaalidu waxay tiraahdaa nin durbaan tuntay ilaaq dalbay qofka hadduu mas'uul noqdo adeerku qolo ma aha shaqo isku malihidin waa qof muuqda ee shacabka Soomaaliyeed ka dhaxeeya oo ummadda tiirdhaxaad u ah qofkaasu qofkii raba inaan wax laga sheegin in yaani maaragtay waxa raba gurigiisa inuu iska fadhiyo qofka raba inaan wax laga sheegin waa inuu wax dariiqul mustaqiimka ah dadku waxay raali ka yihiin waa inuu sameeyaa tan qaraabadana waxaan ka leeyahay walaalayaal berigii ay wadankan waad ogtihiinoo dhowr cudur baa ku dhacdo dawladdii dhexe markii la waayay waxa ku dhacay cudur la yiraahdo taasu qoloba waa iska hormarisay iyadoo qabiila ayaa la iska hormarsaday Somali National Movement baa ahayd SSDF bay ahayd USC bay ahayd you name it adiga ST baa la wada qaatay SNM SSDF USC waxaas oo dhan ST markii la qaatay baa dawladdii dhexe Maxamed Siyaad Barre la bixiyay Allah u naxariistay ayaa waxaan maqlay Ilaahay naxariis iyo jannaha siiye waxa loo yimid nin mas'uuliyiintii kamid ah markii meeshii Muqdisho Maxamed Siyaad Barre laga saaray oo yaani ragii oo dhan la bixiyay waxa loo yimid Xuseen Kulmiye Afrax naxariis iyo janna Allah siiye oo nin khabiira oo mutacallina ahaa ayaa markaa USC u timid oo waxa la yiri de Xuseen Kulmiye Afrax oo odagii meesha waa ka saarnay kaalayo wax qabo oo meesha wax ka dhis
markaasuu qoslo wuxuu uu yidhi bal waa yahay anaa idinla soo hadli doono markaasuu ogaaday inaan meesha waxba aysan wax nuxur weyn huusan jirinoo aysan oolino wuxuuba ay qabiil iskaga beysgaraysnaayeenoo asaguna 21 sano qadiyad qarannimo nin ku soo dhex jiro qabiilkuba qalinkaa yarkaa uu kala qiimo badan yahay asaga marka aad rabto ummaddu inuu qofku uu wax saxayo waxaa loo baahan yahay in uu asagu isa saxo sidaas awgeed marka la rabo qadiyad soomaalinimo kuma dabaqi kartid qoys yar allita tayni ah aniga Soomaaliya igu yar bal ilaahay maqaadireeda dadku qalbi yara anigu waxaan iska rabaa ilaa iyo Sinjibaar iyo Mooyaale iyo ilaa iyo maaragtay ii sheeg Harar iyo Jigjiga iyo Raas Casayr ilaa Raas Gamboon iyo ilaa iyo adigu you name it anigu waxaan iska rabi lahaa xataa waxa igu yar Soomaaliya iska daayay East Africa igu yar aw rather half hadaanba wax qaadanayo Soomaalinimada islaamnimada ayaaba kasii dhumuc weyno lagu tixgelinayaayo iyadaaba waxay ka leedahay maaragta marka dadku niyow qaniica badana qoyska ku qancaya ama hal alira village asagoo heli karada whole cake ninka isku qaabinaya hal dhadhama ninka ku qancaya marka waxaan idin leeyahay walaalayaal barnaamijkani waxa uu yahay waa muuminka faraxiisa munaafiqa naxdintiisa muuminku wuu ku farxayaayo waxay noqonaysaa in ay masaakiinta xuquuqdooda lagu raadiyo nin waliba inuu is ilaaliyo waxaanu siinaynaa shacabka Soomaaliyeed wacyigelin waxa jiro dhabta iyo jaakada beenta baan u sheegaynaa waxaan tusinaynaa barnaamij la yiraahdo ituso itaabsi wuxuu noo taxnaan doonaa maanta insha Allah biidnillaahi alkariim wala socotay wadanka saan u sheegayba mar ST ba ku dhacdo STaasay ahaydo STO inta qabiilkii laga hormariyay SSDF iyo SNM ay noqoto qoysas loo kala baxay marna waxa ku dhacay wax la yiraahdo oo waxa lagu laaqinayaa nimankii ama wolooradaha ama ragii maaragtay ka horeeyay ba civil society-ga ST isticmaali jiray oo at least qalbigoodu national unity-gu ku jiray waxa ka dambeeyay niman kale oo iyaguna invisible slavery oo alla yiraahdo alba notimid markaasay waxay nagu bilaabatay al-ittixaad al-shabaab al-dam jadiid alababa mana sii wadi kara ashi markii laga baxay hadda waxay maanta maraysaa lan Somaliland Puntland Jubaland Imnaland Everland Ubuland you name it waxay socotaba dad baa markii hore waxa la mooday ruuxa niman iska riyoonay naga daay sidii loo lahaa markii dambe markay aragtaba inaba ruyadii ay run ku noqotay ayaa oo marka uu nacabkaagu rabo inuu ku kala jabiyo ood u fududayso wixii adiga ku kala jari lahaa ama ku kala baabiin lahaa ama ku kala qobi lahaa wuu kugu caawinayaa maalintii UNDP-da iyo UN-ta iyo adduunyadu intay tageen international community-ga ay backup gareeyeen oo laantii ay si xoog leh u backup gareeyeen qof walba wuxuu bays yiri war halkayba ka fududahay raggii aan qadiyada lahayn rabay maxaa noqdaa cudurka ugu weyn oo maanta nahaya waxay ahayd waa ugu badan waa madaxweyne hebel madaxweyne kale markaas haddana indhaada ka midba midkii kale iskala soo fariisanaya midba midkii kalena waxa weeye kaala arag waxa weeye waa iskaga qanacsanyo xataa madaxweynaha central government-ga waxa ma dhigi karo asagii baa iska xogxogano madaxweyne soo dhawow waxani wixii nuxurka laga qaadaya cudurrada marka nagu dhacay waxa soo dhan qabiilka dhala Xuseen Kulmiye Afraxmaanintii inta loo yimid la yiri kaala adigu wax noo qabo qabiil ahaan lagu yimid tartiib buu uga baxay wadanka markaas yiri waxaan qabanaya malaha tan taydii ma aha waxa loo baahan yahay marka waxa dadkii bedel lahaa wixii wax ka qaban lahaa qaarajul mawduuc ayaana ku dheeraana aan ku soo noqdo marqaatiga nool maantay waxaan rabnaa waaba siganay subxaanallah nin sigtay ma noola al-sheekh macaali wasiir cabdikariin guuleed baa wuxuu igala dhiman tegay dhowr qalcadood hadda ka hor baan ku sheegay marqaatiga noolkii hore ilaahay waa ii soo celiyey ninkii oo mar labaad saaxada ku soo noqdaan arkay maanta waxaan ka hadli doonaa isaga waa noo soo socotaa
ilaahay waxaan ugu dhaartay kuwo badanood wax moodiin inaysan waxayn inaanu idin tuso ama wasiiradayda ama dadkayga wax u sheegana ilaahay wuxuu leeyahay kuntum khayra ummatin ukhrija linnaas ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani lmunkar waxaad u noqoteen ummadaha ugu khayrka badan waxaad ku noqoteen inaad khayrkana isfartaan shartana aad yani munkarka iyo fasahaadkana iska reebtaan I have rights waxaan xaq u leeyahay inaan u sheego walaalka ama hadda haya ama shalay ka soo tegay sida kan biri imaanaya ama kan haya ugu cibro qaato I have rights inaan ka hadlo wadankayga waxa loo dhibayo inaan qof kale uga leexdo inaan cid kale uga leexdo midna ma aha wax dhanbaan hullaa busto hoos ka galay hiiftaanya qabay haddaan soo kaco hiil aan helo hubka qaatayo heensii xidho waxaan ahay haliyey dhulka hooyadiis halgan ugu jiree hoori liita iyo nacab soo hagow ha ku dhiban cidlee hooy ka baydh hooy ka baydh waxaan ka wadaa xaqu hadduu qaraar yahay soo qotomi maaha waxaanu rabnaa inaanu ka hadalno maantayto inaan ka hadlo walaalayaal militariga soomaaliyeed wax badan baa laga hadlay wax badan baa telefishinka universal t v ka hadlay telefishinka universal t v herar badan buu laftiisu soo maray aan ku darsadee hadda ka hor waxaa jiray cabdisalaan herar iyo 1 milyan ah ayaa hadda ka hor inta al-shabaab iyo ahlu sunna wal jamaaca ku dirireen wabxa ayuu wuxuu yidhi wabxadii buu garan waayo dee nin reer koonfurma nin reer waqooyi ciidamada ahlu sunna wal jamaaca iyo kuwa al-shabaab oo ku diriraya waa xabaa marka wabxadii buu waxba mooday telefishinka universal t v wuxuu maantayta u soo guntaday inuu runtu hadday qaraar tahay soo qotobi maaha xaqa inuu ka sheekeeyo waxaan ka hadlaynaa walaalayaal ciidanka soomaaliyeed wax badan baa laga hadlay halkan telefishinka looga hadlaa meelo badan baa looga hadlaa ma raba inaan ku noqdo 4 sano markay jireen 4 meelood oo Ethiopia ku taalo allaha u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Biladgeys uu ku qaatayo Seenab Xaaji Baxsan ay Biladgeys ku qaadatayo ciidamada Soomaaliya 4 sano markay jireen guulahaasi soo hooyeen ma rabo inaan ku noqdo qarannimadoodiina qarannimada Soomaaliyeedna waxay ay dhulka ku dhacday markii ciidanku meesha uu ka baxo beelbeesha uu raacay waxaad arki doontiin hees wacyi gelin ah oo sideedaba barnaamijkan marka waad aragtiin marqaatiga nool waxaa ku jira ugu yaraan hal hees hal gabay iyo xaqiiqada dhabta oo laga hadlayo walaalayaal heeskaas wacyi gelinta idiin soo socda waxaa ku jira marka ay fanaaniinta qaranku ay intayna heeska bilaabeen calankii oo dhulka yaala ayay qaadayaan waana shuminayaan macnaheedu waxay tahay calanka ciidamada ilaaliya haddii ciidamadu meesha ka baxaana calanku wuu cudad beelaya ciidan ma helayo isku soo wada duub kama noogeyno kuma in badan oo Soomaali ah ayaa ka sheekaysay ciidamada awoodooda inay mar noqdeen xooga ugu weyn ee Afrika kuwa labaad ay noqdeen waxaa idiin soo socda marqaatiga dambe ummadda baa dilanay bari waxaad ahaydeen kuwa baahi tiranoo waxa weeye Afrikadu la beegsado waxaa idiin soo socda intaas wax ka sheekayn doona marka heeska waxaan ka wadaa ciidanku hadduu meesha ka baxo waxaa imaanaysa qarannimada iyo calankuba meesha waa ka baxayaan waxaan kaga hadli doonaa ra'iis madaxweynaheena qaaliga ah xasan sheekh maxamuud maalintii dhowr bilood ka bacdi markii la magacaabay ee uu kursiga ku fadhiyey shacabka Soomaaliyeed erayo badan oo ku raaceen oo soo jiitay oo na farxad geliyay ayaa jiray waxa kamid ah 26 Juun guriyihii la bixiyay waxa laaliyay wixii ka dambeeyay January 26 January 26 bishii koobaad waxa laaliyay wixii goboladayadana ma aqoonsanin degmooyinkoodana ma aqoonsanin dhulalka la bixiyana waxba kama jiraan wixii hanti qaran oo la bixiyay waa soo culin every single person waa farxay I was so happy waxa kamid ahayd oo ugu farxadda ugu badnayd markii dhowr bilood ka bacdi uu yiri waxaan samaynayaa 1,000 ciidan ah oo nabadgelyada Muqdisho kaliya suga waa wadnihii way u baahnayd haddii wadnahaagu bukoodo waxa weeye jirka kale xal ma helayo daawade waxaan ku jiray dadkii markaa Muqdisho joogay
waxaan ahaa inta u haanyaysa nabadda waxaan ku weynay waxa weeye qalcadda ku xigta haddii ilaahay idmo oo nabad sugidda iyadana looga sheekayn doono heesaan u sameeya waxaa ku jiray nagaanshaha iyo raaxada noo diidayaashtii nafta hore askari iyo xildhibaan nahaga iyo nabadoon ugaasiyo ruux lagu nastoo idilnabku siiya xabadee naafeeyey qarankii nimankii burburiyee nacabkii indhaha tiray nabad sugidda weeye nooda allahayo heeskaa waxaan tiriye markii xalana kuwa 1500 oo ciidamada amisom ay qaadanayaan ay badbaadiyeen walaalaha awood yani sharafta leh ee ciidamada nabad sugidda ay badbaadiyeen iyaga ilan xaqu hadduu qaraar yahay soo qotoba maaha weeye waa inaanu markii kii wax mutaystana aanu ammaanaa kii aan kalena aanu waxaynaa midda labaad qaranku waa ciidamada waa national kegi waa waxa naga wada dhexeeya waa frame everybody waa wax annagu aan wada leenahay markii uu madaxweynaha iyagu ku dhawaaqay ee uu yiri waxaan joojinayaa waxaan sugayaa nabadda xamar waxaana samaynayaa 1000 ciidana ya subxaan allah I don't know how I explain wax la koobi kara ma ahayn farxaddu yani waa farxad dhaafnay waxaan ahayn markiiba waxaan filayaa madaxweynaha inaad media ka aragteen ganacsatada contribution millions ay geysay waa lacagta uu leeyahay madaxweynuhu bangiga ku shuba abwaanku waa burqaday raysano bogsano ruba layska jara iyo qabiil laysku raadsado alla nooga raaye waa taa israacdo la ruuxaaya calaamad alaabahaas riwaayaddii qarsatee maydan qaleen gabagabadii shabaab iyo guushii shacabka isdhamaysay maxaa dhaxasheen intaasaanu sameeyey waxa madaxweynuhu wuxuu magacaabay 1000 ciidana 1000kaas nin walba waa burqaday kii waxbuu keenay contribution ummadaanu leadership bay leedahay Soomaalida wax ka fiican anigu weligay ma arag ninka ii sheegi karaana ii yimaadahay wala doodo waxaan aaminsanahay inay the best ummadaha u fiican inay yihiin waa ummad qalbigoodu nadiif yahay kii godobta ka galay iska cafiya gadaal aanu go'an gobonnimo leh Sooriye leh waa ummadda kale oo raas xasayr ilaa raas gamboon adoon shilin wadan adoon wax shaaha wadan lagu soorayo oo lagu maamuusayo waa ummad dhaqan iyo culture u leh forgiveness-ka iscafinta waa ummad inteeda badan aan isku diriqsan xukunka waa ummad sidaas awgeed madaxweynuhu markuu intaa yiri dadka dhan waa topigaas 1000 nin ee militariga iyo meeshii ku dambeeyeen halkii ay ku tageen sidii ahaayeen ayaanu rabnaa inaan maanta uga hadalno mas'uul Cabdikariin Guuleed oo ka ah wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ayaanu rabnaa maanta topiga inaan uga hadalno waxaan ku jiray dadkii wacyigelinta 22 barnaamijkiis dhaxgalka ahaa isla markiiba waxaan sameeyay 10 waxa jiray 10 gabay iyo dhowr riwaayadood oo dawladda u sameeyay waxaan sameeyay ilaan rasuulku kaleey salaatu salaam wuxuu yiri dhamaantii waxaan tiin mas'uuliin inaan anagu isxilqaamo
dowladdeeda contribution siiyo dadkayga wacyi geliyo ku soo duma intaan dhaabo intii wixii aan waxaan garanayo haddaan gudan waayo gafkeeda anaa leh waxaan garanayo haddaan gudan waayo gafkeeda anaa leh inaan garto damiirku i xukumo raadiyo isku soo dumo dadkaygii wacyigelin iyo abaabul sameeyo mobilizationka shacabka aan dhinaca wanaagsan u dumo ayaan isku dayey waxaa ka mid ahaa madaxweynaha hortiisana aan ka tiriyey maantana aan rabaa inaan ku soo celiyo intii nii dhaaftay gabay aan dowladda u tiriyey oon ku taageerayey wuxuu ahaa gabay baa qasqaasiyo shurqool qoorta kuu suriye xabsi qaba gabaa kugu radiye qaadan kari waaye qaska iyo dhibkaa laga tirshaa qiil markuu harine ma qambiranta maansada dadyo keena qaban weyday qalbigiyo damiirkaa xukuma qaadirkuu baraye maantay qaraarta ayaan shacbiga qad ugu jeexaaye garwadeen mushaar qaadan oo qadada loo dhiibo nin shaxaad ku qaanbaxa lawaatan iyo qaabiile dalna wax ugu qaban waa baryada qaar la rabin guusha qadan xumana waa leedihiyo quursi iyo ceebe qoomkii ilaah caasiyaa khayrki waa barine iluu waxaynan qaban dhegtuna maqal ku soo qaadin alle waxaan insaan qaadi karin qoorta maugeli maxay qubatay ilmadaydiioo qoysay dhabankayga maxaa hooyo qaaliya xeryaha dumar ku qaamaysan ciil iyo qaracan iga qabtoon qaabi dhugan waayey dibnahayga qaar cuna intaan cara qamunyooday qandho iyo xanuun ugu dhaco jiifka qaban waayey khasaaraa allow nagu dhacdiya qaadan kari waaye allahayow qaxootaanihiyo duul la quursadae hablihii qurxoonaa kufray qada u geeyaane qasab baa caruur looga dhalay qaar masaafire qaar baa badaha lagu quboo quusay oo tegay qaar baa daraagii bartoo qaadanoo falane qaar baa amuuraha qabsaday qubay dharkoodii qaar baa qoryaha lagu rartaa sida qabaankii imisaanu qayshada baryada qaadiriga yeelay qisadiiyo ujeeddada haddaan qeexa hadalkayga haddaan qodobka meeshaan la rabay qalinka taabsiiyo qarankiiyo xukuumadda la helay qunuga faalloodo qabkii wiilka soomaaliyeed qaabi soo noqoye jamhad qulubqaclaysiya la dhaaf qora midkaygaane qandibuuxsigii laga baxayo qalamso sheerkaaga dabadhilif warqaadiyo dhammaa qaabki tuugsugiye isqadarin wanaagii xaq baa lagu qaboobaye quburi xol baa noo kiciya qaari iyo sheekh qalin iyo aqoon baa loo gudbiya buug ayaa qoraye qabiil xoogan baan iyo sadboob diidiya qarankeen oday tala qaloocshiya dallaal diidiya qarankeen waxma qoro qabiir baana ahay diidiya qarankeen qarxiskiyo ismiidaamintii diidiya qarankeen khamiis beena tuug soo gashaday diidiya qarankeen qabqabliya dagaal oogayaal diidiya qarankeen qasab iyo isii waxaan rabana diidiya qarankeen qalalaasihii waayo dhexe diidiya qarankeen qurba joog akhlaaqdii qaribay diidiya qarankeen qoyskiiyo caruurtii sii dayacay diidiya qarankeen nin shisheeye wax u soo qorqoro diidiya qarankeen qiyaamada kuwii nagu wadana waa la soo qabane allahayow adaa qaadiraho qaniyaho weyne rabbow nabadu waa qaaliye qabax rasaas weyno qabiil qolo ku duuliyo mar unqaxa ka waantowno qof waliba halkuu maro raboo qaato dooqiisa qaninimadii waa aan lahayn qaabi soo noqoto qadarkii ilaahay xaq baa lagu qaboobaye ilaahow qur-aankiyo sunnaha qaadanaa diinta qaban waaga iyo daydayguna qunu hanuunaandhe baryadaadu quus mala allow qaranku noo tooso quwadiyo lixaad yeelano qaarada ha dhaafno quwadiyo lixaad yeelano qaarada ha dhaafno 10 gabay 3 riwaayadood 21 barnaamij oo isdhexgal ah ayaanu waxaanu ugu adeegnay dalkayaga annagoon cidna amaal ka rabin ilaahay se ajar uga rabna waxay ka mid ahay taasu markii kalaamka fiican ee wadanka himiladii iyo haanyadii loo qabay nabadda saxansaxadii dhagaha waxa fiican ay nagu soo dhaceen laakiin maxaa nagu dhacday allah yow sheega yaa ogeysiya alla yaa sheeg alla yaa noo sheega waxay noqonayso you cannot predict your life but you can prepare for it ilaan futureka wixii ay ma ogaan kartid waase inaad iskaga sii diyaar garowdaa maxaa naga qabsaday walaalayaal 1000 ciidan ayaa madaxweynuhu iskugu yeeray markaasaan anagu u xalaaliya wixii dadka ahaa loo dabaaldegay dhowr bilood ka bacdi markii madaxweynuhu uu xafiiska yimid bay ahayd waa la isqabsaday
waxa la yidhaha la hoosgeeyo taliyaha ciidanka militariga waxa la yidhi wasiirka arrimaha wasiirka gaashaandhigga la hoosgeliyo no buu yidhi cabdikariin guuleed waxa la yidhaha la hoosgeliyo nabad sugidda ha hoos tageen no booliiska ha hoos tageen no see wax u jiraan anaa waxaan ahay wasiirkii arrimaha gudaha iyo amniga qaranka haye hadda madaxweynahana maqarabiintiisu kama aha 3 muuqatiya 8 qarsoon walaalkay talada ninka ragga wax ka gooyuu ku jiray waxa la yidhi masaasaa rabtaa haa waaye qaado 300 waxaa laga keenay 400 waxaa laga keenay militariga 300 waxaa laga keenay booliiska 300na waxaa laga keenay nabad sugidda cafwan 100na asluubta laga keenaan dhihi lahaa 300na waxaa laga keenay nabad sugidda iyo booliiska iyo militariga waxa la iskugu geeyey iskool buluusiya waxaa loo dhiibay nin diiday garaadada cusub ee dowladdii dhexe korneel ahaa ilaa haddana korneel ah halkaas ayaa lagu xareeyey maalintii lagu xareeyey waad og tahay haddee militariga marka laga hadlayo ciidanku waxaan garanayaa marka wiilka soomaaliyeed oo labisan u dhan yahay dareyskiisu markuu saa u soo maro suuqyada ay mashxarad gabdhuhu ku dhiftaan kabihiisa aad waxa weye istiilaha ku shaxan karto aad ku toogsan karto dharka kabihiisa shayniga nuurka ka baxaya kabtiisa kaliya sida uu soo yani usoo nadiifta iyo waxa ka muuqata never mind inuu bal iskaba dhaaf inuu raashin waayo iyo inuu bahalki waaye waxa la yiri dadka madaxweynihii uu doortay ee wasiirkii arrimaha gudaha iyo amniga qaranka mas'uul looga dhigay nin walba wuxuu islahaa maantay ayaad waxaad waxa weeye nimcaad geli doontaa walaalayaal korneylkii ka xishooday inuu garaadaha ama xilka akhru zamanka qaato kuna faraxsan tii hore ee dowladda dhexe uga dhacday ayaa markiiba 3 bilood ka bacdi dhowr bilood ka bacdi ayuu wuxuu soo qoray warqad uu leeyahay ciidankii anigu shilin uma hayo meeshaas iskaga xareysan yihiin garaamkiina waa ka go'ay mushaarkii waa laga gooyey militariga uu ka qaadanayay kii nabad sugidda uu ka qaadanayay kii booliis ka qaadanayay kuwa asluubta ka qaadanayay hadda wuxuuba noqday kuwa la doortay oo loo doortay shacabka amnigiisa oo hadday noqoto cashuurtii suuqyada iyo hadday noqoto meel walbaba nimankii amniga sugayey madaxweynuhu uu doortay bay noqdeen waxay dhacday inaan dheg loo dhigin haddana wuu soo qoray wuxuu yidhi war waxa dhacaya amniga wixii aad u rabteen amni daray isku bedelayaan ma rabo inaan korneelka magaciisa sheego mana loo baahna mana ii sheegin oo igu wallaahiya ninkii asaga raba sidiisa inuu raadsado asagay u taallaa innagu waxa barnaamijkan iyo kuwa lamidkaaba aan u wadaa waxaan kaga hadli doonaa halista ummadda soomaalida ku soo wajahan waxaan rabaa qof walba inuu asagu isxilqaamo me and my camera aad qaadato kaamaradaada aad noqoto waddankaaga adigu aad xil iska saarto ima dhigin korneelkaasu mana aqaano mana aha inaan ka soo wariyo igu wallaahiya bad anaa markhaatiga noola anaa dhex joogay muqdisho waxay noqotay haddana inuu warqad kala qoro yidhi ammaankii aad rabteen inay sugto muqdisho waxay ku sugan tahay ammaan darro wuxuu qoray ra-iisul wasaarihii markaa joogay saacid wuxuu u qoray madaxweynihii wuxuu u qoray wasiirka arrimaha gudaha amniga waxa ay noqotay inaan loo soo jawaabin markii saddexaadna wuu iscasilay waxay noqotay ciidamadii markay naftooda wax waayeen markay 5 bilood 6 bilood ay mushaar waayeen inay inta soo baxaan xamarweyne dhexdiisa isbaara dhigtaan ayagii isku dilaan dad ku dhinto ayagii dhexdooduna isku dhintaan wasiirka amniga qaranka weliga apology kama bixin public kama uusan hadlin arrintaa kunkii ciidanka school police la iskugu geeyey ee lagu tababarayay ee rehabilitation raba in loo sameeyo ee wadankooda iyo dalkooda ay rabaan xamar waa wadnihii
in loo dhiso walaalle waxay noqotay inay iyagii dhexdooda isdilaan magaalada dhexbartankeedii ay isbaaro dhigtaan inay intaasoo qof ku dhimato laba calina aysan isweydiin inaan wasiir xilkiisa ku waayin inaan cid kale aysan ku waayin kuwii maamulka cid kaloo maamulka loo dhiiba maana cabdikariin guuleed ayaa qaatay ma hoostegeyn ciidanka booliiska taliyaha ciidanka booliiska ma hoostegeyn wasiirka gaashaandhigga ama taliyaha ciidanka baalki gaashaandhigga ma hoostegeyn nabad sugidda ma hoostegeyn asluubta ma hoostegeyn waxay si toosa u tegaysay cabdikariin guuleed madaxweynuhu wuxuu ku bixiyey laga codsaday caalamka loo sheegay laguna helay kunkaa nin lacag 6 milyan ah 6 milyan oo dollar subxaanaka yaa ilaahi yacni qarannimada soomaaliyeed oo dhan bay soo celin lahayd mise niyow aniga waxaan u malaynahay sho haddayna soo gasho koobshaa waa ka fudud ma naqaan wallahi garan mayno 6 milyan sida aan isleeyahay ciidanka soomaaliyeed oo dhan bayba waxay dhusi kartaa 21aad iyo 22aad iyo xooggii soomaaliyeed iyo sharaftii iyo karaamadii bay soo celin kartaa taliyaashiina looma dhiibin cid kalena looma dhiibin maalinna ciidankii kunka aha mushaar kama qaadan xaggee ku dambaysi aaway 6 milyan maxay dhashay maxaa lagu qabtay ma oge haddaad ogtihi haddii kaleba waxaan kuu sheegahayaa saxafi state weligaa ma maqashay miyaad og tahay maxaad ka warqabtaa marka 6 milyan xaggee aaday 6 milyan aaway 6 milyan aad bay u badan tahay daawade dadkaasu muddo 6 bilooda wax mushaara maysan qaadan ilaa iyagoo iska dileen bay ku gaartay 6 milyan looma soo celin koontadii qarankana kuma soo dhicin dibna uma noqone 4 taawar ee hodan ku taala ee kiiba uu yahay 40 apartment halkii apartmentiba uu yahay 150,000 ayaa 6 milyan lagu dhisay ama ogow ama ha ogaanin subxaanallaahi waaba ku mahadsan yahay madaxweynuhu hadda wasiiradan lasoo magacaabay waxaa ingiriisku yidhahdaan bad excuse better than nothing been lagu sheega wax la-aantay dhaantaaye annagoo og 16 dambi jadiidu inay ku jiraan oo yaangaysta wadnahooda dabataagta iyo dherarka midda maaragtay dabataagta iyo ugaarta nooca ugu wadnaha fiican ay ka wada fiyooyihiin oo wiilal yar yar oo 24 jira ee 16 da-iyo jada 3 muuqatiya 8 qarsoon representative u ah ee aan qaranka Soomaaliyeed u shaqeynayna ayagu ay meesha ku waardeysanayaan ay rabaan dalka inay duu qabsadaan inkastoo ku jiraan wasiirada 16 haddana waa ku maatay inuu wax naga bedelo laana hadda kuwan gastrik baa laga qaaday la ilaaha illallah muhammad rasuulullah shacabku wallahi madaxweynaha hambaliyo kuga haya taas laakiin madaxweyne ninkii intaas sameeyay in xil lagu magacaabo taasaaba waxay tahay gaf waxa ka sii daran inaad tiraahdo gobolada dhexe ee qarax ka jirin ee aan isqaqabsi ka jirin ee the most peaceful party in Soomaaliya meesha ugu nabadda badana shabaabkii laga celiyay cadawgiisa internalka laga dhiciyay in la yiraahdo madaxweyne waa loo dhiibayaa
waxaan rabaa ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed inay ila daawadaan cabdikariin adoon ciduna qasbin asagu iskiis madaxweynaha maqan maalintii dambana uu madaxweynuhu leeyahay waa soo dhaweynaynaa saan hore u sheegay wasiirka waxay kuma soo degin saan hore u sheegay ma helin waqti uu inta ku tago oo ku soo tacliimiyo ila fiirsada marka inuu iscasilayo waxaan si rasmi ah u cadeynayaa inaan iska casilay xilkii aan u hayay qaranka ee ahaa wasiirka amniga qaranka anigoo rajeynaya in xilkaasi culus ee aan hayay cid alle cidii loo magacaabo shacabka Soomaaliyeed uu garab ku siin doono gabagabadii waxaan u mahadcelinayaa dhammaan hay'adihii amniga shacabka Soomaaliyeed ee cid kasta ee gacan igu siisay gudashada xilkayga muddadii aan xilka hayay cabdikariin xuseen guleed waa mahadsantii xal yiri beelownin intii aan dheer buu maraw qabsadaa madaxweynuhuna xilkana waa go'aydan Umar Cabdirashiid Cali Sharmaak waa lagu soo daray haddana sidaan la socono waxa la rabaa in laga dhigo madaxweynaha gobolada dhexe Central State in loo wada madaxweynuhu waa ognahay macaali wasiir sidaadii hore shacabka Soomaaliyeed ma ku nabca kumana nabcaan doono haddaad adigu inta isxilqaanto sidii ayaantii aad tiraahdo war qofku wuxuu awoodeed u leeyahay qaban karaayo waa mahadsantihiin aniguna waa ku feel garoobay ummadaanu ummad waxa weeye cafis badan waxaan ka codsanayaa Soomaaliya ku qaadi weydii gobolada dhexe fadlan waxa weeye naga qalee waxaan ka codsanaynaa inaad candhuuftaada dib u luqdo madaxweynuhuna nagala xishoodo adiguna aad ka xishooto waxaan uga digayaa shacabka Soomaaliyeed failure inuusan faa'iido keenin hadduu ku dhaco tii hore shacabka Soomaaliyeed waxaad ila fiirsatiin ma aha waxaan anigu dareen aan idin sheegayo anigu halkaan idin soo marinaya bal hadda ila fiirsada Cukaash wuxuu ahaa taliyaha ciidanka madaxtooyada waxa lagu xiray gabay uu kaga cabanayo dhibaatada militariga haysata waxaan xasuustaa hadda aad arki kartiin afgooya maalintii dagaalka loo aaday Cukaash anigoo qori iyo tuuta wata ayuu arko qori kale ugu qabtay wuxuu yiri qoriga maxaa jira war meeshan dadkii camba dhuuqa ahaa oo diyaas barahi ice cream ka dhuuqi jiray loogama baahnee orado wariya shaqo yeelo baabuurta raac bullet proof ka aan xabadu karin dhigna qoriga inta hadalkiisku ayna yeelkuna qabsaday halkii baan isku baranay halkii buu wuxuu ogaaday walaalkay wixii markaas inaan qoriga iska qaadan experience aan markaas u leeyahay khibrad aan u leeyahay waxay noqotay inaan dhaawicii iyo dhimashadii baan madaxtooyo keeno waxa nin zaciim oo dalkiisa iyo dadkiisa u soo qidmeeyay waxa lagu xiray xorriyatul qowl waxay ahayd sidee aad u dhihi kartaa horena wataan idin sheego gabaygan hadda soo tiriyaa waxa ku jiray gabay baa qasqaas iyo shirqool qoorta ku suriya xabsi qaba gabaa kugu ridiya qaadan kari waaye qaska iyo dhibka laga tirshaaqil markuu aharina ma qabiranta maansada dad yow keena qaban weyday qalbiga iyo damiirka xukuma qaadir ku baray bal nala dhageysto Cukaash fariin qaran
in dhoweedba waataan ka tegay gabayadaydii gacmahan ka laabto mar hore baan ka gaabsaday anoon gebin inaan u gambiyo waa go'aansaday markii lay gardaadiyeyba waa soo ganaanuday maanta gabay waxaan tirinayaa gun iyo baac dheer nin gaboobay iyo wiilgu iyo ruux gaari ma hayaani geeduhu ku yaalaan aqaan oon ka soo guriy adduunyada markii uu gelgelay gocosho weyn reebiye kumanaan aan geerida rabino baqa isgiijeene gaanjada markii aan ka jaray gaaskii baa fiday gal xareeda nimanbuu u yahay dhay la soo gaday nin kalena gantaal buu ku yahay gubaya laabtiisa hagadoodu ruuxii rabee waan ku godayaa milatariga gaajadu disho gaardin kari waayey milatariga gaabsanahayoo goodi kari waayey milatariga gaadiid waddada gooshi kari waayey milatariga goobihii dagaal guul ka dhali waayey milatariga gobannimo ka tegay ee gunnimo doortay oo cadowga goonyaha fadhiyo gaari kari waayey waxa geeye heerkaas haddaan maanta garan weynay guulaystayaalow wax badan baan ka gaabinay gaashaandhigeennow adaan kuu gallinnahay maxaan geesh dhisnaa taliskii baa cuni garaamkii galhareeri gudaha jowhar iyo gobolka hiiraana galgaduud ilaa gaalkacyo garawa meesheeda ama guriga buuhoodle iyo saylac guradeeda gabiley waqooyiga galbeed harar gadaasheeda haddii aan goday iyo wardheer doolla soo geliyo goofgaduudka baydhabo ilaa gada aan gaarsiiyo nimankaa garaadada dhigtee geela ku ilaalsho guutooyinkii kala tegiya gaaskii kala yaacay mar labaad haddii loo guntadeen goob isugu keenno gaashaandhigeennow adaan kuu gallinnahay maxaan geesh dhisnaa taliskii baa cuni garaamkii garoommada haddaan haaqno oon ciidan soo gelinno sida loo gambado misena cadowga loo guulo gaatan socod haddii aan barniya gaadakacayaarka kaaraha garguurtiya haddaan hawsar soo gadanno geyigeennu waa nabad markay guluf dhaqaaqaani gaashaandhigeennu adaan kuu gallinnahay maxaan geesh dhisnaa taliskii baa cuni garaamkii waxay la tahay qof walba oo ogyahay xukaashilla hadda waa xiran yahay waxaan ka codsanaynaa dowladda ka codsanaynaa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha abwaanka in la soo daayo fikirkiisa inaan lagu waxaynin annagaa sheegaynaa hadda xaqu hadduu qaraar yahay soo qotobi maaha askariga soomaaliyeed muwaadinimaa wadee ilaahay baa iga sarreeya inuu wuxuu ku diraanan aqoon qalcadaha kale oo soo socdaan uga hadli doonaa muxuu ku dhintaa ninka hadduu dhaawacmo beeshiisa lagu yeerayo hadduu dhintana ilmihiisa dib loo fiirinayn soo ma aha mahmaayadii ahayd habar jinni wax la dilo waa tahay jinnina wax dilo waayahay inay tahay waxaad ku ogaanaysaa ninkani markii xabad yaru dhacdo weligay ma arag askari soomaaliya oo cararaya waxaa jiray hees aan tiriyey oo la yidhaahdo soomaali dhaartaan abid dhabarka jeedine waran dhiigle iyo faras dhulka lagu xoreeyo soomaali dhaartaan abid dhabarka jeedine boqol buu u babacdhigi wiilkan dhallaayo dhimashada kamuu boqon ruuxii xaq dheehdee dhimashada kamuu boqon ruuxii xaq dheehdee weligay ma arag soomaali cararaya dagaalka cukaashuu ila joogay markaan yaaboon u imid milatarigi waxay dheheen maxaan ku dhibanaa safiir abwaan maxaan ku dhibanaa haddaan dhaawacno nalama siinayo boogadhaysteedii haddaan dhibanana ilmaha iyaga dib loo eedi maayo maxaanu ku dhibanaa waxaan mara ka ahaa mararka kalean uga hadli doonaa yaysan waxba ila gelin inay sida tahay oon dhaawacooda la daryeelin oon cid u fiirinaysa aysan jirin mudane iyo marwooyin ila fiirsada wiilkan soomaaliga ee wiilka askariga ee lagu geeyey turkiga turjubaanka u ahaa wuxuu mujtamacii soomaaliyeed u sheegay
iyo waxa uu ka dhex yidhi adinkaaba qiiroon doona. wiilkaas wuxuu ahaa askari madaxtooyada ka tirsan. asagoo hal mid buu arko miidiyaha galo waxaan rabaa barnaamijku maadaama itusoo itaabsi uu yahay inaan waxaan rabaa idin tuso waxaan ka hadlaya inay xaq tahay oo waxaan anagu this is a part of contributionkayaga aan rabno shacabkayagu. wasiirku waa inuu isasaxaa dalku saan muxuu ku noqday wax isdabagala ma leh transparency ma leh wax xisaabtan ma leh wax la qabanayo ma leh. annagaa rabna inaanu dalka iyo dadka on behalf of my people inaan u eedowno inaan u dhibanno inaanu recruit garayno thousands of professional ah oo waari maysida warakaa taga ah. waxa weeye ma dhammaan adduunka ilmaha dhaxala loo reebaa inta kamaradooda qaata dhaha maanta intaana xun Amazon intaanay maanta farxumaysi ciidamada Etoobiyaanka intaana farxumeeyeen intaana waxaan lagu waxeeyay intaana kan soo waxeeyay intaana gabdhadood baa la qabsaday intaas oo kana waa uga hadli doonaa kama aamusi doono kamana aamusayo. wiilka asagoo ooyaya yimid ee yiri Brussels waxaan kula kulmay mas'uul markaas u qaabilsan Soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda. markaasaan xaaskayga xiran ayaan iri halkaasi ku jirta Amnesty International iyo Syria ku xiran tahay kuwa kale Libya lagu xiray maba ahaan xataa wiilal xataa gabdhaha noo yimid oo ilaahay iga sareeyo qof walba inta yimaado leeyahay abwaan arintan ma ka hadashid abwaan arintan aniga ma kaliye thousands-ka halkan raggan ka sheekaynayo bay dhaba maalintii ciidamada Etoobiyaanku galeen halkan Cabdi Shiroon ka salaamayo walaalkay ayaa ano waxa weey inta laga soo wacaa leeyahay abwaan intaas oo dhibaana lagu geystay waxay awoodiisu ahayd buu markaa dawladii la xiriiray. waxaanu nahay daawade maxaa lagu yiri wiilkaas oo walaal anaaba ka qurux badan ma iska furtay aniga guursatid hooyadii ilmihii hooyadiisa waa aabihii ilmaha ay gabadhu haysato thousands-ka makaasaan deynaa dalkayaga iyo dadkayaga waxa aan u awoodno haddaan ka hagrano annagaa ducufaa mar dambe iyo mar dhaxaba waxaan leenahay waxaan garanaya haddaan gudan waayo gafkeeda anaa leh. askarigii aad wada maqasheen oo miidiyaha galay ee aawadii lagu toogtoo loo soo qabray oo intaasoo digniina helay oo wax protection la siin oo wax la waxay aan jirin oo hadaf wadnihii ummadda ka shaqeynaya ee lala sugay ilaa inta asagu qurmo isku baabao markaa ka bacdi la yiraahdo oo baralaadka noqdo bal ila fiirsada qofkaas markii dhaawac loo ogolaaday waxaa lagu soo qaaday baarlamaanka markaa deertaan la weeraray waa lagu soo daray waayo awal waxaa loo ballan qaaday markuu dhaawac dhaco in la soo qaadayo qof jiran oo ah qof dhan oo dhaawac la soo qaaday qof bilaadan laguma soo darin isagoo qof bilaadan lagu soo darin isbitaalka la keenay oo garanaysan Turkidu ma yaqaanaan luqadda Ingiriiska intaan waa ka meyd isbitaalka waa la seexiyay meel baa la seexiyay naarsinka wuxuu keentay quraacda subaxii way tagtay muu hadlin way laabatay qadadii bay keentay way taalaa way yaabtay xitri kuma helin cashadii bay keentay intaa waxa ma soconin qof bilaadan lagu soo daray den ma qan waxna markii soo siiyay oo soo wax lagu yiri ii turjumayo qofkan marka la hadlay wuxuu yiri niyo waa isfahmi laana waxna ma cunaan aniga inta qosan sakaraadka ah isbitaalkii buu sheegay aniga u sheeg wuxuu ku yiri ninka baralis den dadkii dhan isku ooyay waxa uma qaban karaan qofkii dhan mas'uuliyad ma jiro yaa mas'uuliyad ku sugaysan marka idinka qofkii mas'uuliyad ku sugaysan. waxaan filayaa shacabka Soomaaliyeed waxa la yiri in aan leey marag ma tago waxaan filayaa xalaal barqaa la qootaaye waxa aan ka hadlayno marqaatiga nool hadaad ku marqaati furu weydaan oo dhihi weydaan alla ilaahay waa sax oo aan anagu itusoo itaabsi waxaan ahayn aan kaga hadalno anaa qaladka iska leh. waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed anigu garan maayo
garan maayo mar waxaan is idhaahdaa war dadkaanu ma duran yihiin marna waxaan is idhaahdaa maya mar waxaan is idhaahdaa nothing goes last adduunka wax sidoodii nimankii talyaaniya faransiis iyo ingiriis iyo etoobiya dhifiid gareeyey 100 sano berbere iyo marka ku hayay ummadii saas ahayd ummadii ahayd fashionka ummadii ninkii gumaystihii kala gooyey NFD iyo ogaden shacabkoodii inta soo baxaan soo noqdaan ay ciidamada xibnaha sarsare ka noqon jireen ummadii attractive-ka ahayd ummadii maxaa ku dhacay waxaan xasuustaa markaas xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii ay tahay ulul amrigiinu kuwa khiyaar ah ganacsatadiinuna ay tahay kuwa deeqda bixiya adinkuna aad dowladnimadiina wixiina shuuro aad ku dhisatiin waxaa idiin khayr roon inaan adduunka kor joogtiin haddii laakiin dowladdiinu ay tahay kuwo corrupted ah haddii uu tahay ganacsatadiina kuwa bakayliin ah haddii dictatorship iyo dad kali maraqsada iyo aad gacanta u gashiin waxa idiin roon ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam leeyahay inaad ciidda hoosteeda ku noolaatiin in allaha laa yugayiru biqowmin ilaahayna aayaddiisa muxuu ku leeyahay qoom ilaahay ma dooriyo ilaa iyagu ay isdooriyaan maane waxaan ka baqayaa ummadda soomaaliyeed wiil baa la aamusun waaye wiil yar oo markaa dhashayo waa la yaabay meel kastaa la geeyey war wiilkan waxaa meesha isbitaal kastaa la geeyey waa lala orday nin khabiira maalinta dambe wuxuu yidhi cunugan maxaa siisaa wallaahi naaskaygana waa siiyaa waxa weeye rina arcarbeedana rina waa u lisaa waa la baaray markii dambe waxaa la ogaaday ridu inay garaamaha qaadka soo harta ay cunto cunugiina ila waa marqaansan iyo hurda kusoo dhici maysa 12 caaw iska leeyahay ummaddan waxaa israa mar ma duran tahay oo ma la buufiyey ma baranooya ku dhacdo nin baa wuxuu iska dhaadhiciyey inuu yahay xabad masagaa xabaddii masagada ahayd ayuuba isku haystaa suu u socdo shimbir buu arkay oo ka leexanaya digaag buu arkay oo ka leexanaya wax walbuu ka arkay baranooyi kuna marka war maxaa kugu dhacay shimbirtaa cunaysa war maxaa digaaggaana cunay haadii oo dhan iyo wuxuu ka cararaya ilaa lagu dhaarto la yidhi wallaahi inaadan ahayn shimbir qof ibni aadan oo ilaahay uumay baa tahay mar waxaan is leeyahay baranooyadii xabaddii iyo wixii dagaalka ku jireen sababtaan saa u leeyahay ummaddani may kacdo ummaddana ma xaquuqdeeda raadsato ummadaha adduunka maa la tartanto may aragto waxa jira walaalayaal waxaan idinkugu soo gabagabaynayaa barnaamijkan wuxuu yeelan doonaa biidni illaahi alkariim mar kasta oon ka hadlayno mar kasta oon qabanayno hal ducaahan ku soo xirno aamiinta inaad ii dhahdiin iyo waxaanu ku soo xiri doonaa heeska militariga ciidanka militariga u sameeyey balse ducadii baa ka horeyso aan anigu uga bixi doono aamiintana adinka ii dhaha wax badan aamiinta waa laydiin waxeeyey waa laydiin wasaqeeyey ilaahnimadaada awoodda adaale inaadna ajiibtaan allow kugu baryaynaa abtirsiyahaygu islaamnimo weeye inaan ku adkaadaan allow kaa baryaya burburkiiyo qabiilka soomaali ku baahay inay ka bogsootaan allow kaa baryaynaa bukaanka xanuunsan adaa wax badbaadshee inaad noo bogsiisaan allow kaa baryaynaa allow taqwadeenna waxaan tabanayno inaad taamka yeeshaan rabbow kaa baryaynaa jidkaan hadda hayno inaanaan ka jeesan jannada ku tagnaabaan allow kaa baryaynaa intuu xusulkeennu xabaal ka sarreeyo xifdinaa qur-aankan allow kaa baryaynaa xuruufta qur-aanka ilaahu xaggaaga xabiibku ka keenay ayaan kugu baryaynaa calayhi salaatu wasalaam khiyaanada islaamka qofkii ku shaqaysta inuu ku khasaaraan allow kaa baryaynaa khiyaanada islaamka kuwii ku shaqaysta inay ku khasaaraan baan allow kaa baryaynaa dariiqa ibliisku dadka uga yeerto inaad naga duudaabaan allow kaa baryaynaa wuxuu naga reebay wuxuu noo ruqseeyey rasuulkeenu raacnaan rabbow kugu baryaynaa calayhi salaatu wasalaam allow raxmadaada oo aan naga raagin inaad noo ruqsaysaan rabbow kugu baryaynaa shuruucda islaamka inaan la shuhbaynin shaydaanka ka dhowrtaan allow kugu baryaynaa
sadriga iyo laabta indhaha ku sugnaaday inaan zamna siin baan allow kaa baryaynaa dayaca salaada wixii durun oo ah inaan iska daynaan allow kaa baryaynaa dahaarada dhowrno salaada dhexdeeda dubnaaniyadeedaan allow kaa baryaynaa dulmiga iyo beenta xantaa wax dullaysee dadku iska daayaan allow kaa baryaynaa allow cilmigaaga caqiido wanaagsan inaad nacabsiisaan allow kaa baryaynaa kayrkaa ma jire kayrkaa ma jire yaa khafaar dunuub ikfir dembana baan allow kugu baryaynaa fidnooyinka taagan intay furfurtaano dadku far noqdaa baan allow kaa baryaynaa fidnooyinka taagan inay furfurtaane dadku far noqdaabaan allow kaa baryaynaa qabowga isheennu qur-aankeenna weeye inaan qabsanaabaan allow kaa baryaynaa kubkoon wayse yeelno kalaamkeennu tawxiid kasabkeennu xalaal baan allow kaa baryaynaa kutubkoon kor yeelno kurbada naga haysa inaad kaafisaabaan allow kaa baryaynaa laqdabada ka leexo lilaahida xooji inaan ku liibaanaan allow kaa baryaynaa laqdabada ka leexo lilaahida xooji inaan ku liibaanaan allow kaa baryaynaa magaca rasuulka midkaaga ku lifaaqday maciisa ahaanaan allow kaa baryaynaa calayhi salaatu wasalaam maxabada ilaahay marnaba aanaan waayin mudeec u ahaanaan allow kaa baryaynaa murugada nahaysa madoobaha qabriga maalin nooga yartaan allow kaa baryaynaa naftaan markaan weyno adaa naxariistee inaad noo nicmaysaan allow kaa baryaynaa walaalo islaama waxaan qabanayno wanaag uga yeeshaan allow kaa baryaynaa hilaal ramadaanka inaanaan hilmaamin hanuun nugu reebaan rabbow kaa baryaynaa yaayaadaan dhaafnee intaan yoolka raacno yaqiinta ku gaarnaan allow kaa baryaynaa rasuulki iyo ehelkii iyo asxaabta aabba iyo hooyo allow ka sawaabi ambiyada oo dhan ayulwaalidayni ahlullaahi allow ka sawaabi ilaahnimadaada awoodda adaa leh inaadna ajiibtaan allow kugu baryaynaa ilaahnimadaadaan allow kugu baryaynaa inaadna ajiibtaan allow kaa baryaynaa addoonnimadeenaan allow kugu baryaynaa asalaamullaahi calaykum waxaan idiin rajaynayaa gobonnimo iyo guul iyo markhaatiga nool inuusan idin seegin salaamullaahi calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu عشبانو دقيا
So